Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in la soo gabagabeeyay wejigii koowaad ee howlgalka amniga ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho, waxaana lagu soo bandhigay hub, maandooriye iyo kooxihii lagu soo qabtay intii howlgalku uu ka socday magaalada Muqdisho. Afhayeenka booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan oo shir jaraa'id ku qabtay saldhigga booliska degmada Xamar Jajab ayaa waxa uu ku dhawaaqay amarro ka soo baxa booliska kuwaasi oo ku socdo bajaajta xilliyada habeenkii ka dhex shaqeysa magaalada Muqdisho. Ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in la go'aamiyay in wixii ka dambeeyay 6 habeenimo aan magaalada Muqdisho lagu dhex arki karin bajaaj ka shaqeynaysa isaga oo ku goodiyay in ciddii u hoggaansami weyda amarka ay marsiin doonaan caqaa'ib adag. Sidoo kale booliska ayaa shirka jaraa'id ugu dhawaaqay amar ku socdo dhammaanba ciidamada qaranka kaasi oo ah inaan xilliyada habeenkii magaalada Muqdisho lagu arki karin askari wata qori. Ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa yiri waxaan soo qabanay tuugadii dhici jirtay moobilada, kuwii guryaha jabsan jiray, kuwii wata bajaajyada ee tuugada ahaa. Waxaan soo afjarnay wejigii koowaad ee howlgalka, waxaana loo gudbi doonaa wejigii labaad. Saldhigga booliska degmada Xamar Jajab ayaa galabta lagu soo bandhigay maandooriye nooc kasta leh oo aad u badan, hub iyo qoryaha AK-47 ah, midiyo iyo agabyo kale oo xilliyada habeenkii lagu dhici jiray dadka magaalada Muqdisho. Habeenadii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ka socday howlgal horey loo sii qorsheeyay oo lagu baacsanayo tuugada, wuxuuna afhayeenku uu sheegay in lagu soo gabagabeeyay wejigii koowaad isla markaana uu bilaaban doono wejigii labaad. Sii sheer garay muuqaalka si saaxiibada kale uu gaaro. Mahadsanid.